السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديا شقيمها هي قدرين تمضنا وكسر هذا برنامج كأني قصوين كهذا مع قيبتي سي طبنات فقرة سي لبات شكدي آد كوحنو كبدنا إذا نحمر تاي جوادي ريدي ننكي guursaday ama laga iibiyay sheekadaasi waxa ay noo mareysay inay gabadhii yareyd ee miskiinta ahayd uu ku dafiray ninkii guursaday ilmihii uu ka dhalay haba ku dafiro oo ma xume ee gabadha aabaheed in wiilkii dhakhtarkii ugu abtiriyay isagii iyo dhakhtarkii gabadha aabaheed oo wiilka awowgii ahaa iyo dhakhtarkiina ay sheeka dhaxmartay ma gabadhaada ayaad wiilka ka dhashay iyo gabadhii oo ku ooyday wax kastaba waan ka ogolaaday laakiin inaad ilmihii adiga dhashay ugu dafirto yeysan dhicin halka marka ay mareysay qaybta labaadii waxa ay inoo noqonaysaa wiilkii miyuu koray sidoo ku koray wiilkii aabihii maxaa dhaxmaray halkaysa sheekadu ku dambeysay waxa inoo dhameystiraya sheekada oo qaybtii horena inala socodsiinayay maxamed cabdi raabi ugaaska oo soo jeediyaha barnaamijka qisooyinka aadamaha عبد الرب كوسو دو برنامج قصooyinka aadamaha sheekadii xanuunka badnayd ee dhaxda inaga taagnayd daawadayaal badan ay inaga socodsan inaan u dadajino walow aan dib uga yar dhignay ilaa 2 bari 3 bari si aan maanta ugu dhameystirno kusoo dhawo barnaamijka qisooyinka aadamaha afakaar maxamed aad u mahadsan tahay labada maalin dib waxaan u dhignay qisadii xanuunkeeda meel laga taabatay marka qisada aan gudagalna marka maadaama daawadayaasha saad u sugayaan sheekadeen waxay nagu dambeysay oo qisada ahayd in ay gabadhii ku dhacday wiilkeedii aabalaan musiga aabaheedna uu noqday mid markaas u noqday wiilka oo looga magac daray oo aabbo markaas u noqday waxa dhacday gabadhii markii inay joog weyso meeshaas ay ku nooleed oo dadkii hadaladoodii iyo markaas waa taqaanaas dhaxgalka bulshada meeshaas marka cidin hadana qaraabo yihiin waxa dhacday gabadhii marka inay murug ku joogto marka dambe walaasheedo markaas joogtay qurbaha ayaa waxay dhahday waa inaad tagtaa dalka dariskeenna Itoobiya sida kugu soo xareeyeen bixitaan oo iskaga tagtaa meeshanbo maadaama waad ka salaadahay gabadhii marka de cungeeda marka uu yaray dib u wadatay marka waxay Itoobiya la tagtay Itoobiya waxay joogtay amalina hal sano sidii ku tagto ay qurbaha u gasho marka waxa loo ogolaayay markaas iyada kaligeed inay qurbaha loo qaado oo markaas wiilka laga soo celinayo marka wiilkii yara intuu halka san ee la joogtay Itoobiya ayaa waxa dhacday inuu museegii ka dhalay cuniga oo isu xanuunsado oo markaas dib Soomaali uu soo noqday caafimaad daro inuu waxa ku gasho sokora ku dhacday dhiikara ku dhacay daan uu ahay hadii madii uqabun wuxuu gal dumarka ay qowdooda dumarka qowdooda ilaaha naga qabtay laakiin waa daranta ay ka naftoodii markuu qabtaan sagaal ay ka diftaa dhijir sagaal jeer garan maysa adigu gabdhaha ishoodu sagaal jarcay ka diftaa jarco waa saan guri laga dhigto oo adag oo laga sameeyaan umaleyn kulli wax geel iyo saamahooda lo'da jarca marka la dhaaqab waxa loo sameeyaa adag guri baa laga dhigtaa baadiyaha inta badan lagu dhistaa marka sagaal jarco oo wax aad u adag ka dhaxbaxaysaa ilaahana qabto Soomaali marka museega markuu Soomaali dib u soo noqday waxaan u soo marka هذا سي أصلا مدة مركا أنت يجرين توبي وحوجه وصومالي وكحن وصناعي وصير في هذا مركا ويل كيرا مركا وحود دشتي سجاشن يلا بدي ودشتي قصة دب ونقناة تاريخ دي صد سنة دب لهنا أمرنا لكن وحي قصة دعدي سجاشن إيو يلا بدي دحدي ودشتي بيش تطبعات عنقان دشتي سديدا سجالات لحيلاتن سنة شان لحيلاتن سنة وبربرك سومال مقول بلامنا إيه قصة دعدي marka wiilkii marka asoo jiro waxa dib loo soo celay asoo 2 sano ee bar jiro ay dib waxa hooyadiisa baxday dib waxa lagu soo celay marka Soomaaliya sidii aydiisa uu la koro maadaama hooyadiisa ay tagtay cuniga marka uu yar weynaado marka museegiina ama waxa xanuunsaday baadiyaha la geeyay caanaha la soo siiyay uu soo kobcay markaas museega dana uu ahay waxa dhacday wiilka aabiis waay meel loo kulmatay karaan DNA laga qaado marka Soomaali DNA waxa maleenaya ma la garaneyn burburkii markaas uu gudaha loogu jiray cunugii yaray oo markaas dugsi yar 3 sano jira malaani xogaa dugsi loo diray dugsiga soo ka soo noqday museegaano markaas ul ku socdo wadada iska hormaadeen waa wiil iyo aabiis aan isgarnayn marka cuniga fudeednimo yaray uu qabeedi waa ilmaha waan ka yiri waa taqaanaay ushii uu markaas u arkiin ku dhacay museego yar leeyahay marka
markuu leeyahay cunugii garashadiisa ilaahay aabihiisa garashadiisa garashiyada qoystay museega garab ka qab dhabsi oo dhahay awoowe raali noqo asoon af Soomaali yar garanay markaas cunuga dan kaaga dhax galo 2 sano hadal ku bilaw cunuga inuu hadlabo asoo Itoobiya joogo bilaaway hadalkiisa hadalku la jiray cunug mucjiso markaas ahay hadalku yar garanay markaas sax awoowe raali noqo iska dhahay museega madax u sarax u dhahay ma sha Allah cunuga Friida taada qaladkaada garatay wuxuu u sii celi ma ku dhaweena waa 3 sano xoogaa u jira 4 sano wax yar u dhiman bilooyin museega soo u wada wuxuu keenay gurigii oo museega degnaay markaas waxa guriga iridi taana marka walaalkiisa oo marka cunug yar aqoon u leh wanahay soo wiilka yarka Friidka ah inuu jig isiyay oo gartay soo wada intaan dhan yahay waan cunug ma sha Allah daadiisa muugan hadal ilaahay wuxuu maad cunug hal laba ma sha Allah ilmana aan amala ka ahaadaan cunugii amaan u daba kacay hayu xuda adar iska buxudaadi iliska wala fi waa iska xaafiska adar lahay marka uu soo waday asaa garab soo qabto wuxuu keenay markaas meel horaari dhisan oo fidisay marka wuxuu dhahay cunugan aqoon ma u leedahay ma aqoon wadada ka soo qabtay ma ogta inuu wiilkaada yahay waay fariidnimadan aad ku dhashay subhanallah markii wuxuu dhahay wuu fikiray wuxuu dhahay ximligaada uu sii daba dhamaanaya cunugan afka dhashay oo kale ma haysatid kana doosan ku soo koro cunug markaas aakhiri adduunku anfacayo noqonaya dib ma uu noqotaa gabadhiina wacdo maadaama qorbaha aade ma soo celisid oo yani cunugan aabihiisu u noqotido magaca lagu abtiriyo wuxuu u sadkay marka hadii waana daciif museega markaas duqnimada ka daba imaato xanuun waa jira oo aamusay kadib walaalkiisu dib u wacay wuxuu dhahay cidii iige oo soo waday diyaar loo keenay marka diyo marka dina yaaban muddo adigu wuxuu joogaa amalena 2 sano iyo xogaa 3 sano ku dhawaad uu joogaa hal maalin moo soo booqanin waa tii ogeed falcelintii iyo dhibkii ka dhaxdhacay soo socday museega lagu soo qabsaday asoo markaas ku calaalay u dhahay bil aadaran ahay qalada iga dhacay gafku waan ka soo noqday bal maciin hal sameeyo cunugeyga haligu abtiriyo sax museega wuxuu dhahay taas waxa go'aan ka qaadan karo hooyadiisu oo dibku soo bareertay okay waayahay ana waxa dhaqo loo qaraabaan nahnay dee xumaan horna kuma qabin adun baan xumaysay waa ku cafini laakiin gabadha godob ka gashay ina dib u wacdo oo cafis ka dalbato wax ku dhaama lahan sax hayuu dhahay nambarkeeda loo raadiyay waa loo wacay marka uu wacay marka uu la hadlay soo dhahayo uu ku calaaladi raali noqo wuxuu dhahay gaf waa dhacay saanan ahay hadal kale ma dhihin inuu hooyo tahay ma qeeratay dhaad wiilkaada inaad dhashay bal fi dibkii dhan way ilowdi waxa rajo gashay wiilkaada ma aabuu yeeshtay sax bal hooyo fiir meeshay ku gaarsiisay kaasoo dhahay wiilkayga ana diyaar u ah noloshiisa inta ka dambeeyaan la dhameystirto ani diyaar ah wiilkaada aab u noqonaysid kaamadiida dhiigaada way dhahdeen sax waan ku cafiyay sax marka meeshaas waxa ka cad marka inay aad iyo aad u jiraan naxariis badiyeen marka sidii markiis uu ogolaato wiilkii loo keenay wiilkii yara marka inuu aabo noqdo uu dareensay marka sax cunug yara waxa ku qofulin aabiis inuu yahay awowgiisu hadii cunug marka la dhahay aabo awow ku soo koro aabo dhan la tusin hadii cunug markii dugsiga la weydinayo magaca markii la awow soo abtirsanaya waa nin ma ka hadli karo oo wiciis celi karo oo yar magacaam kila hebel axmed ali dhaawde hadii la seebo hebel farxa u ma dhici kartaa iska cunugana waa ogtahay wixii qabtaa waa ku dhigayaan cunugu waxa la dhicay aabaha waa kan ha aabahay waa u dhahay wixii igu weyn aabahay waa sutaay sax adeer miya oo aabahay oo dhashtay wax sutaay niidka cunugan ka qofulin aabo dhahay aabo iska dhaasane cunugii marka wuxuu soo gaaray 5 sano iyo xoogaa markaas hooyadiisana dacwo u soo xareysay Itoobiya la wada rabaa museegina markaas sariirtu ku soo aruuray marka wiilkii yaa umaaday oo wiilkii laga wuu dhaay marka wiilkii marka Allah waxa ku wacay aabahaga aabahaas waxa ku quful marka awgiisu naabiis yahay marka soo aabeeke kaasal Allah magaciisa loo sheegay marka aqal yar oo ku jira kaliya soo soo gal marka soo aabo aniga ku dhaaro dhahay marka cunuga maskaxdiisa waa tamado 6 sano si gaaya aabay ma taaway ha
markaasuu dhahay hebel hebel aabbahay soo maaha awowga waa dhahay hebel hebel laakiin aabbahaaga anigu ku dhalani waayo markaasuu dhahay magacaada weligaa hadda maalmahan ka hor ma maqlin uu dhahay si aabbahay ku noqotay markaas waa wada hadal wiilkiis dhexmaro marka markaasuu dhahay aabbahay ma noqon kartid mana u qalantid aan aabbahayga hal aab la yeeli karo laba aab ma yeeli karo hooyadii aan weydiinaya uu dhahay marka uu u soo tagay hooyadii soo wacay horta hooyadii la hadashay uu dhahay waa loo wacay awowgiis aa wacay asoo marka awowgiis dhahay aabbo hooyo ii wac uu la hadlay hooyo aabba kalaa soo dhashto dhahay oo aan garanaynin aabbayga yaa waaye ducuniga magac xaq wuxuu leeyahay inuu kala ogaado aabbigiis rasmiga kasii dhahday aabbaha hadda kula taagan waa ana aabbahaygo kaasna waa adi aabbahaaga kan awowgaa waaye kaasna aabbahaaga rasmigaada ku dhal waaye haddii hooyo waxay rabtaa marka inay kala barto cunigeedu aabbahii rasmiga cunigii mayuu dhahay waa diiduu dhahni intaan soo barbaarayba aabbahay ma arkin uu dhahni intuu jiray aabbaha ugu maqnaan lahay maxaa magac lagu daray ninkan taagan marka oo lagu magac dari waayo cuniga marka waa murna galay wuu yaryahay markaas xoog badan oo markaas wax lagu sheegay ma hayo uu sidoo ku qaatay marka markii la soo xareynayay sponsorkii uu cunka baxayn waxa lagu soo xareeyay awowgiis magaciisa inuu aabbo yahay lama bedeli karo shay waa la bedel hadii dib hadan loo noqdo waayo wixii la cancel gareeyo cunka Ethiopia la geeyay Ethiopia jooga bilooyin cunka bixitaankiisa waa fudaatay hooyadiisa loo geeyay marka hooyadiisa loo geeyay museega sakaraad caad u noqdo marka asoo markaas rajif wuxuu dhahay wiilkaygii xaaskiisa gabadhii aan qabay haleelaha heshiiyo dhahay waa loo soo wacay marka wuxuu dhahay aniga uma maleynaa u dhahay inaan noolaanayo haddana waad iga sii fogaateen cunugeen ilaa hadda waxaan u maleynayaa inuu ka dhaadhicin in aabbo ahay mid ma kaa codsan karaa wiilkayga inaad ka dhaadhicisay inaan dhalay ma ii samey kartaa awalba waxay dhahdaa shalay ka carartay aniga kuma fiijinin wiilkaaga adaa dhashay dhiiggaada waaye waana wiilkaada u ahaanayaa ee waana ku cafiyay dhahdee museega markii saa loo sheegay maalmo kama soo wareegan museegu markaas wuu xijaabtay bas cunugii wuu weynaaday marka 12 sano gaaray wuxuuna wili ku abtirsanay awgiisa lagama bedelna aabiisa qurbaha waa taqana wala kala mashquuli cunuga wax ka dhiciso intuu isku jira ku mashquulin ka keen uu dhacay oo si saxanaya suuxi waa si kicinaysa sabdida xadda laga yaabna jaan ka hesho yar tahay markaasna diyaasada banaanka aadi karo wareegi karo marka cunuga gacan la qabanay maaha cunuga maxaa la marka Soomaaliya loo geenaa lahay asii hooyadii soo raacin Soomaaliya la keen marka waxaa la rabaa in soo bara qabriga aabiiso oo la aabaaga museega maalintii ayalad kula hadlay ee maalintii ayalad arkiisa waay qabrigiisna waa kan aabahayga awowgan waay wuxuu dhahay maskaxdeeda horta hooyo makiinu soo aabahayga ninkaas yahay waa laga horta markaas waa nin wax fahmaayo wax laga dhici karo 12 sano jira adii 14 15 sano 16 sano jira marka maamadii way ku wareertay wiilka marka uu soo baxay macallin dugsi oo markaas uu xasuus ka haayo oo ka akhrisan jiray oo dhihi jiray aabaha ilaahay ha ku soo hanuuniyo uu ducay jiray oo u tagay marka maxan ii war fiican ma sha Allah waxaan ka xasuustay aabaha ilaahay ku soo hanuuniyo aabay soo kan ma hadda nool ونورد أباه مرنو قالوا له أباه مرنو قالي أنا قاعد أوقف يعني وين هاي هو هذا أم بحقيقة كرتو الحقيقة تقدر تكسي كرتو لكن أباه إنه مرن قالي ما نوجاي صح لكن أباه دومان ما أنت ما أونولين هو هذا الموسيقى أباه إيه أو مركز أوديك أنتي إن أباه كرتو أو مركز قاعدته عافية عنق سيدو قاتي مركز معلنكي أورهدي سو مركز قاتي وصون على سعودي قربها لقي مركز عنق بربار مركز magacii wili kama baabay marka oo qornay marka dadkan oo barteen wilin hooyis ma badalin wala badal kala san jacla qurbaha ma la badal marka bas cunugu yar weynaaday guuru qaatay marka inuu yaani guuru doonay inuu guursado iyo wax ba ka dhaawiisna waxa ka dhacay marka cunuga 20 sano gaaro qurbaha waxa la jeeyo cunuga iska yaani iska guuriyo gabadhu jaclada marka gabadhu wuxuu u sheekay marka ani aabahaygo saasa jirto yaani taariikhda qisadii dib loo sheekay oo san dib uu sheekay gabadha marka gabadhu way la yaabtay marka adu waxa la xaqiiq dhab lagu maayna aab leedahay walaal aan aabahaygu dhintay ilaa uu xariisto laakiin waan qaatay hadii aabaha adaa muran geliso dhahay anama gelinay dhahay sax adiga aabaha da qiri weyso muran ay gelisay waxa aakhirtay hadii waa wax ma ka shaki ku jira aabaha inuu yahay in kale
awowgiisa ana biyo noqon oo dhaana hoodii u dhalay awowga waxaa loogu abtiriyuu dhahay hooyada ceebtada ila asturay gabadhii marka waxay keentay dumar waa taqaanaa isdhaxgalkii adkeysay marka wiilku uu xanaaqay marka hooyadiisu dib ugu soo noqday hooyo wuxuu dhahay ani xaqiiqda dhab ah aabeyga lama hayo marka wuxuu kala aqaanaa wicil iyo waxa soo bartay ana daa wicil ah ii sheeg maamadii way yaabtay marka war aabaha uu dhintay wiilkaygiiyo markaas haddana ma noolo waa tii aan kaaga ku soo qabrigiisa waan aragtay adoo yar may qaado taas aabaha waa inuu dhintay sax gabadhi marka waa wiilku yar kulleysay marka mas markaas waa dadka marka socodkooda way dheeraan kartaa qof markaas khatiga Soomaaliya tagay qurbihii waa arkaa marka gabadhi waxay si aragtay marka gabadhi saaxiibiina qaraabo ee geeskayahan ay ku aragtay waxay dhaaday wiil saas jeclaaday oo saas qiis ku dhacday war qiisaha Soomaaliya ka maqani gobolkeena ka dhacdo waay wiilka hebel samaha wiilkaas wicil waay war ugu marsan Soomaaliya soo tagay war wiilka dib aabbu u yeeshtay oo dumjeega uu ku booday goorma aabbu yeela waa tii u dhahay nima dhalane marka gabadhi shakiya gal marka mar labaad is arkay marka waa nin wax jecel wiilku waa way kulmeen waxay dhahay walaalow xaqiiqda dhabna ku sheega hooyada ay awowga ka qarnay inay wicil tahay hadaan anu wicil guursanaaye walaalow cadaanka ma arkano kuma garanayaan cadaanka soo guurso cunugii qadiid waxa gashin cadaanka guursado dumar kala hadiyo bas wiilkii hadii waa aabuu leeyahay waa tu aabiis la kulmay wixii dhan marka hadii wax marka bulshada halka la qabsaday baa ka xoog badan been tagtay runimo gaadhay waa si sheekada ciyaarshada ku dhacday runtaada marka wiilkii marka sidoo ku tagay marka heer wuxuu gaar cunugii inuu cadaan wax ka raadiyo cunugii sidoo ku tagay hooyadiisa marka dam la hadashay Soomaaliya la keenay in markaas dhaqankiisa dib lagu soo celiyo Soomaaliya dad ku waashtay de Soomaaliya markaas meesha uu daran tahay war xumaataala dimana dimzeeg inta waay waska qaatay maahne wala hooyada afska dibana maahne inuu ku dhalo in kala xaqiiq ma jirto cunugii shakiya gal marka cunugii meesha ku sii waayay marka cunugii dib wuxuu u bartay xataa balod inuu isticmaalo oo isku dajiyo waa la soo celiyay waxa la keenay markaas hadana qurbiga lagu soo celiyay hadii Soomaaliya markaas wax ku soo fahmay qurbada deekan uu sii waayay hadana qurbiga uu waayay hooyadu waxay dhaday marka meel cunugii u ran garanay iyadoo dhees xataa waxaan ogaa cunugayga nafsadeeda inaan uga cabsoodo dantaa qasbayso waayo wuxuu ka dhaadhiciyay nafsadiisu inuu wicil yahay cunuga mar wicil yahay hooyadiisu ay saaranaya inay ku dhashay marka awowgiisa la hadlo cidii la hadleen intaas waxa ka dhaxay cunuga inuu madaalnay oo wax ceeb la asturay oo la qarqaranayo marka cunuga sidoo ku barbaaray asoo marka waxa ogaay ka dhaadhici weysay aab inuu lahayn aab waa leedahay ka dhaadhici weysay marka hooyadiisa marka ka sheekaysay oo dhahday duqiya dhigay marka cunugii gadaal dama ficiliska abiis uu qaatay laakiin waxaan u maleynaa gadaal dama xuus dhahay aabaha iyo waxaan la sheegay inay madadaalo tahay marka sheekada saasay ku dhamaatay hooyadiisa wiilka sheekadan iga sheekaysay marka iyadoo murugaysan waa wax laga murugoodo museegii uu dhintay horta ilaa uu naxariisto laba falba maamadii wili qasidiisa uu ku reematay marna waa mid uu ku sameeyay midna waa mid taagan oo maamada ilaa hadda ka bixlaa wiilkii ka bixlaa heer nafteeda uga baqdo maanta adiga aantaadii hooyada ay wicil ku dhahdo hooyada saaraysa qof kale ma saaraysid yaa kugu dhalay cilmidaas leedahay marka iyo inta ka imaatay sheekadan awowgiisu aamin waayay dadkii qaraabada xataa adeeradiisii aabiis dhinaca aabiis la soo waceen u dhaheen waa xaqiiq dhab ah marka wuxuu dhahay asiga marka waxa cunug yar waayo dad kala sii waalayo ku dhigay bulshadu ku soo barbaaraya marka waxay ka dhacday marka ninkan uu wicil yahay marka haduu macaan waxaan qabaa haduu macaanka dhii lahay aabahaga rasmiga ah waa ninkaas cunug inuu qaado lahay macaanku wuxuu ku dhahay sheekadana waa sheeko muran taagneed xaqiiqda dhabtan hooyada kaliya ku sii karto taas cunugiina ku taagneed waayo macalinka wad aamini kartaa wuxuu ku dhaho waayo hooyada aabaa wax ma dhaamo waa waalidkaada labaad cunugan wuxuu u tiigsado uu orday macaanku uu tagay waa xaqiiq inuu ka helo macalinka haduu dhihi lahay hooyadaada iyo sheekada saan ahayd aabaha rasmigana waa hebel awowgana lagu abtiri aabaha khalaaf jiro haduu sheekadaas ka dhici lahay waxaan jeclaa sheekada may taagnaa lahayn aniga ahaantiidu sheekada saa u fahmay balse adigana waa maqashay si kale u fahmi kartaa daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudana guud ahaanba sheekadii xanuunka badnayd intaas ayay ku dhammaatay inooguna eg tahay tan iyo intaan sheeko tan oo kale ay isugu iman doonaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.